الدرس السادس المد بالياء. التدريب الأول. casharka lixaad madka ya-da ama shaqalka dheer ee ya-da layliga koowaad. carabka ayaa lagu layleeyaa aqriska ama qiraa'ada kelmadahan 20 kelmadood ah. uduni, kutubi, kurati, safari, camali, karami, cunuqi, صفتي، سهري، صحفي، رقمي، عرقي، ورقي، قلمي، سمري، سلامي، كلامي، طعامي، سلاحي، شمالي. casharkan waxaan ku baranaynaa sida loo dheereeyo xarafka kasrada wata. xarafka marka kasro la saaro, tusaale ahaan nuuntan marka kasro la saaro waxay ahayd ni, marka waxaa lagu dheereeyaa yaa la sukuuniyey oo reeban, ni bay noqonaysaa. labadan hore waa alxarakaat alqasiira, waa shaqalka gaaban. kana wuxuu ka mid yahay alxarakaat altawiila, shaqalada dhaadheer. marka isu akri uduni, kutubi, waa taa dambe weya. markaa almadu bilyaa darsiga ulajeedadiisu waa halkaa. kurati, safari, camali, karami, cunuqi, صفتي، سهري، صحفي، رقمي، عرقي، ورقي، قلمي، سمري، سلامي. halkaa waxaa ku jira almaddu bilalif, waxaana kasii dambeeya almaddu bilyaa. almaddu bilalifna horaanu soo dhiganay, waa fatxadii oo alif lagu dheeraynayo, kasradii oo yaa lagu dheeraynayo. kalaami, tanna waa la mid. laamta waxaa lagu dheereeyay alif oo way fadxisan tahay, wixii fadxisan alif baa lagu dheereeya, wixii kasrisanna ee hoos dhiganna yaa baa lagu dheereeya. tanna waa la mid. طعامي, marna kor baad u taagaysaa, marna xaggaa horaad u jiifinaysaa. silaaxi, shimaali. sidaa iyo nabadgelyo. aad baan idiin salaamay. wabilaahi towfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. isma dhaafno.